Ukraine warbaahin kasta oo maxalli ah iyo mid caalami ah oo wadan kasta oo dunida oo ka soo baxda caalamka oo aad booqato waxay ka qoraysaa 10 qodob oo warara kuwaasoo ku saabsan hadalka Trumpka iyo socodka Trumpka iyo sidoo kale qadiyada Mareykanka iyo Ruushka ee wadankaasi Ukraine. waxyaalaha la yaab kale hadda banaanka u soo baxay waxa weeye in Ukraine kolkii ugu horeysay dunida casriga ah ay noqotay dalkii koobaad ee isagoo shalay madax banaana xuduudo la yaqaan lahaa siyaasad aad u adag iyo saaxiibo waaweyn leh laakiinse maanta miiska saaran oo la qalayo taasoo gabi ahaanba calaamad su'aal dul saartay qaar kamid ah wadamada adduunka ugu awoodda badan iyo kuwan awood lahayn dad badan hadda ay go'aansadeen gabi ahaanba inay qaadaan dhowr talaabo oo ay ku xaqiijinayaan midnimada iyo wadajirka dadkooda. barnaamijkeena warawarayn maanta waxaynu ku eegi doonaa isku ekaanshaha dhinaca siyaasadda iyo dhaqamada isku midka ah ee ay leeyihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka Soomaaliya iyo Vladimir Zelensky wadankaasi Ukraine iyo sidoo kale sida la suugu lari karo labada siyaasadood ee gudaha iyo khatarta dibadda ee wada wajahayaan labada qaran ee qaranka Soomaaliya iyo kan Ukraine. kusoo laga hadlayo Soomaaliya iyo Ukraine waa laba dal oo kala duwan marka la eegayo dhinaca taariikhda wadanka Soomaaliya wuxuu lahaa taariikh la yaab leh wuxuuna muddo aad u dheer u ahaa wadan madax bannaan hase yeeshee waxa uu noqday wadan burburay 1991 tan iyo intaasna wadanka dhibaatooyin aad u xooggan oo hanta harblaaba soo maray laakiinse waxyaalaha wadanku uu ku guuleystay iyadoo xataa Soomaalidu ay marar badan ay hal wad ahayd waxa kamid ah inaan ciduna ku habsan ciduna qaadan muddadii u dhaxaysay intii la dhisayay shirkii Carta lagu qabtay wixii ka soo baxay ilaa iyo kii Bagathi iyo xataa ilaa iyo bari dhexe oo markaasi hogaamiyaashii Soomaalida ee Muqdisho dib ugu noqday ay bilaabeen inay si dadban u ogolaadaan ciidamo sheeyo oo wadanka soo gala laga soo garo Cabdullaahi Yuusuf lagu xijiyo Sheekh Shariif oo asagana xiligiisa Kenya soo gashay Ethiopiana heshiis dadban la galay Xasan Sheekh oo sii waday arrinta isla markaana kaba sii daray oo isagoo ogolaaday in sirdoonka Ethiopia iyo nin la oran jiray Gabriel ay sabada dhigtaan Soomaaliya سكستبها النقطة ودك الصومالية وصاق بتاعت يسنة كلمات يكون يتطبيع تمانكي سياسة أرميها تبدأ ودك أيا يديله حقن يلاتي ودك أيا مشاريع وين ولنا على سياسة يكون جولستي دين عفيست أيا وحي نقطة النظام لجوه الشيء أو دولة إتتبسي مشاريعات عندما أيا تشوكتر نقطة ودك كنا وحاول يا شيء كل وزير رؤى مضح بنان رئيس وزراء أود بدن يوزير مركل الله فريستو إلا ورئيستو كجواب يدمان سؤالها أردن سواء كإدارة قادمين أمر كسوين مدحويني تصاعد كتعوتين برامج كين حي دولمر oo ku wareysana inta badan golihii wasiirada oo dhan ee Soomaaliya kuwaas oo kula xisaabtanay wixii allaale wixii ku saabsanaa heshiisiyo waxay qabteen iyo waxay qaban tan iyo intaas Soomaaliya kor iyo isu socotay laakiin sanadkii 2021 markii qalalaasaha Soomaaliya uu ka dhacay doorashadii 2022 mar kale talada dalka Soomaaliya waxa ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud isla xilligaas oo kale laba sanadood iyo bar ka hor xilliga Xasan Sheekh Maxamuud oo Soomaaliya madaxweynaha u noqonayo nin dadka ka qosli jiray ayaa ku guuleystay markaasi taladii dalka 12 Abriil 2019 ayaana la sheegay in uu ninkaasi ka guuleystay madaxweynihii isaga la tartamayay kaasoo la sheegay in nin dadka ka qosli jiray uu si lama filaan oo Ukraine taladeeda ugu qabsaday Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Ukraine waxay ku kala duwan yihiin dhinaca waxa loo yaqaan taariikhda laakiinse wax kasta oo kale waxa uu inay ka sameeyeen waxa la yiraahdaa Xasan Sheekh Maxamuud halka isagu uu ka ahaa nin macallin ah oo iskuulada iyo ka shaqeeya hay'adaha NGO-yada ee shisheeyaha iyo kuwa Carabta intaba mar badan iskuulada wax ka dhiga ninkan isagu wuxuu ka shaqeey jiray markiisii hore arrimaha majaajilooyinka iyo dadka ka qoslinta laakiin sadana waxay ka simeeyeen hadalka faraha badan inta uu hadlo in leeg ayuu hadlaa wadaadka kalena taasna waa la yaab waxa kale oo ay labada dal ay ka simeeyeen sida hubanti la'aanta ay labada ninba uga dhigeen wadankood markii dagaalka uu ka qarxay dalkaasi 2022 Soomaaliya waxa madaxweyne ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waagaasi wuxuu ku guuleystay in dagaalka oo aad Mareykanku isugu dayay inuu dunidooda ku lug yeelato Soomaaliya ka badbaadiyo wuxuuna gabi ahaanba qaatay mowqif dhaxdhaxaad ah iyadoo oo dawladda Ruushka oo dana badan oo dhinaca deen cafiska aanu kala hayn iyo Mareykanka oo sidoo kale aanu kala hayn labada uu ku guuleystay inuu ku qanciyo inay Soomaaliya miisaan ahaan halkan aysan dhex gali karayn farmaajo dadkii la shaqeynayay oo qaarkood hadda Xasan Sheekh Maxamuud ay la shaqeeyaan taaway ku amaaneen waxay ku tilmaameen inuu meel jiqo aad u adag Soomaaliya ka soo saaray waxa la yaab noqotay in laba qaraar oo bil gudaheed la hor keenay golaha guud ee qaramada midoobay oo Ruushka labadaba lagu cambaareeyay midna uu ka codaysay Soomaaliya midna ay u codaysay taasoo mid walba ay labada quwadood ku kala qancisay maalintii horena ay Ruushka qancisay oo ay sheegtay inaysan maalmaha adag ee aad iyo aad ka khilaafka u taagayay aysan u soo gudbin raaci doonin wadamada kale halka maalintii labaad wadamada reer galbeedka ay ku qancisay halka maalintii saddexaadna gabi ahaaba ay Soomaaliya u gambisay oo meesha ay ka maqneen siyaasadaha noocaas oo kala waxa ciyaari kara wadamada inta badan soo laha kaadiriinta waaweyn ee dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda haddaba aynu fiirino Xasan Sheekh Maxamuud iyo mudane
سيلينسكي waxa uu booqday dunida inteeda badan wadamada Albania, Argentina, Australia, Azerbaijan, Bulgaria, Cape Verde, Croatia, the Czech Republic, Denmark, Finland, Georgia, Greek, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Norway, Oman, Philippines, Portugal, Romania, Singapore, Canada, Estonia, Japan, Latvia, Moldova, Netherlands, Qatar, Slovakia ayuu inta badan noqotay intuu booqday wadamadaas dhammaan aynu sheegnay ee laga soo bilaabo Albania ilaa iyo wadanka Singapore mid hal jeer ayuu booqday halka Canada, Estonia, Japan, Latvia, Moldova iyo Netherlands, Qatar iyo Slovakia, Spain iyo Sweden iyo United Arab Emirates mid laba jeer uu booqday wadamada Saudi Arabia iyo Vatican City laba jeer ayuu booqday wadanka Switzerland afar jeer halka wadamada ay kamid ka yihiin Italia, Lithuania mid afar jeer Turkiga iyo Ingiriiskana lix jeer halka wadamada Belgium iyo wadanka Mareykankana uu booqday toddoba jeer wadanka Faransiiska iyo Poland sagaal halka Jarmalka wadanka la yiraahdo Karigina uu 10 jeer tagay madaxweynaha Soomaaliya ayaa saas oo kala ah wadamada loo yaqaan Eritrea, Kenya, isku taga Imaaraadka Carabta, Djibouti wadamada ay kamid ka tahay Tanzania, Mareykanka, Turkiga, Switzerland, Azerbaijan, Italia, Masar, Uganda, Burundi, Saudi Arabia ayaa kamid wadamada uu madaxweynuhu aad ka booqday wadamada Eritrea iyo Djibouti wadamada Uganda iyo Tanzania, Kenya iyo isku taga Imaaraadka Carabta marka la isku daro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 38 jeer ayuu booqday taasoo ka dhigan in wadamada qaarkood uu in ka badan 10 jeer uu booqday madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha wadankaasi Ukraine labaduba waxay ka siman yihiin arinta booqashada arinta hadal badnaanta labaduba inta badan waxay la hadlaan warbaahinta shisheeye inta badan warbaahinta gudaha xooga ma saaraan waxay kale oo ay ka siman yihiin inay inta badan dalalkaas oo dhan markii la baaray badankooda ee arrimo dhaqaale iyo ay kala hadleen wax la isweydiisanayo xoolo ku saabsan xataa markii madaxweynaha Soomaaliya uu tagay wadamada Yurub ay kamid tahay wadanka Britain waxa kamid ah waxyaalaha laga wada hadlayay dhaqaale Imaaraadka Carabta sidoo kale Djibouti iyo dalka Eritrea waxa la sheegay in iyaga laftooda ay qolana uu dhaqaale dhiganayay qolana uu dhaqaale ka soo qaatay halka wadamada Uganda iyo Kenya uu ku leeyahay madaxweynuhu maalgashi Tanzania sidoo kale uu guri aad u xooggan ku leeyahay dabad wareegga aad ka xooggan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Saliiski ay ka siman yihiin waxay dunida ku riday afariir aad u xooggan labada dal waxay ka dhigtay kuwa u dabacsan arrimaha iyo amuuraha isjidooyinka oo dhan halka maanta la qaybsanayo wadanka Ukraine Soomaaliyana waxay kala siman tahay halkaas oo kale in magaalada Ankara lagaga wada hadlay sidii badda Soomaaliyeed loo qaybsan lahaa halka ay arintani ay tahay tii ugu darneed uguna xumeed ee meesha ka taagan sidoo kale Soomaaliya waxa ku lug yeeshay shirkado aad u xooggan iyo wadamo shisheeye oo shidaal loo saxay kuwaas oo shacabka Soomaaliyeed aysan waxba ka ogeyn waxa la kala dheefayo waxa la qaybsanayo iyo arrimo la xiriir oo kale waxa kale oo jira maamul goboleedyo Tarbiyada ay kamid tahay Puntland oo cilaaqaad toos ah leh ayaguna dalalka ay kamid yihiin isku taga Imaaraadka Carabta iyo Somaliland ayagoo sidoo kale lagu tilmaamay inay tani muujinayso arrimaha dhinaca madaxweyne dunida iska wareegaya labada nin marka laga hadlayo ayaa la yiraahdaa xanta ay xantaan dadka ay la kulmaan waxay kaliya ka sheekaystaan waxa ay ka soo doonaan wadamadan iyo waxa kaliya ay doonayaan inay tahay dhaqaale taasoo ay ku tilmaameen ayaduna mid yididiilo aan siinaynin wadamada ay ka yimaadeen marka arrimaha gudaha la fiiriyo wadan walba oo labadan dal kamid ah arrimaha guduhu way isku hursan yihiin way isku dhubqeen dhibaato aad u xooggan ayaana haysata arrimaha gudaha marka laga hadlayo masiibooyinka waaweyn ee arrimaha gudaha wadamada haysta waa kala qaybsanaanta iyo waliba burburka bulsho dhaqan dhaqaale iyo hubanti la'aanta madax banaaneed ee qaramadan ayaa loo arkaa haatan inay khatarti aad ugu xoogganeed ee wali ay dul hoganayso maadaama la xaqiijiyay isla markaana la isku wada raacay in ay marka dambaysa ay soo badanayso baalini habdhaqan aad iyo aad u fool xun oo hogaamiyaashana ay leeyihiin dadka oo dhan waxay isku raacsan yihiin wadan haddii hogaamiyuhu ka xumaado inay hubanti la'aan noqonayso mustaqbalkiisu meesha ku